asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran kanaalkeenna soo dhowaada waa walaalkiina cabdimajiid maanta waxaan mar labaad aan ka hadlaynaa check iyo checkmate. Check waxaa la yidhaahdaa markii uu boqorkaaga ku jiro khatar. Checkmate waa markii uu boqorkaaga ay u dhammaatay oo la qabtay oo saddexdii sharci aan idin sheegay oo kala ahaa CPR oo ah sida in boqorka cidda weerarayso xubinta weeraraysa laga qabto oo capture lagu sameeyo. Midda labaad oo ah B oo protection ah in xubinta ku weerarayso in xubin kale aad boqorka hor dhigtid si uu xubintaas ay kaaga qarsanto, ama in aad sameyso R oo ah run in aad ka ordo intaasoo dhan. haddii saddexdaas marka aad weysid micnaheedu waxay tahay in ay ciyaartu dhammaatay. saddexdaas option mid ka mid ah haddii aad haysatid ciyaartu waxay tahay weli way sii soconaysaa oo maysan dhammaanin. Hadda aan fiirino kuweyntu waxayba tagtay F8 oo ah halkaas. marka koowaad boqorkaaga wuxuu ku jiraa khatar. markaan waxaa laleeyahay check. marka check haddii aad dhahday saddexdii waa inaan u bandhignaa. marka koowaad boqorkaada ma ordi karaa, inta ma tegi karo, sidoo kale inta ma tegi karo, inta midna xasuusnaada mar walbo labada boqor isma taaban karaan, iskuma soo dhowaan karaan. waa inuu u dhexeeyaa hal square. tusaalehaan hadda waxaa u dhexeeya squarekaas. mar walbaba iskuma soo dhowaadaan iyaga, iskumana imaan karaan. marka intana maba u ordi karo oo weli waxaa joogto kuweynta. intana sidoo kale kuweynta iyo boqorkaba way joogaan. marka macnaha orod hadda kuuma furno marka koowaad. marka labaad aan fiirino in ay xubin kala taallo oo kuweyntan hadda khatarta ku hayso boqorkeenna aan xubin karna aan inta ka dhigi karna ma jirto. laakiin marka waxaa noo furan in ikhtiyaarkii ahaa C oo ah capture, in xubinta khatarta kugu haysa aad iska qabatid. waxaa jira marka bishop ayaa inoo yaallo. bishopkan ayaana naga qaban karo xubinta khatarta nagu hayso oo si toos ayaa iyuu qabanaya. markaasna boqorkaada khatar kuma jiro oo faraxsan yahay dabcan. okay, haddaba meesha uu marka hore F8 ka tagay oo halkaas ahayd, ka waran haddii uu tago H7 oo ah halkaas. boqorkaadii marka hadda way u dhammaatay sababtoo ah saddexdii ikhtiyaar kuma furno. midka koobaad oo ah in xubintan laga qabto boqorka run ahaantii ma qaban karo sababtoo ah xubintan waxay haysataa caawimaad oo ah boqorkeennii ayaa caawinaya. oo labada boqor waxaan idiri iskuma soo dhowaan karaan, waa qalad, iskuma soo dhowaan karaan. sidaas awgeed ma taaban karo boqorkan. sidoo kale ma carari karo oo ikhtiyaarkii cararka ah uu ka dhammaaday. inta boqoradda ayaa noo hayso, sidoo kale inta boqorkii iyo boqoradda ayaa noo hayo. intana kuma ordi kartid. ikhtiyaarkii labaadna way ka dhammaatay. ikhtiyaarkii saddexaad oo ah in xubinta aad xubin kale ka hor dhigtid si uu boqorka u badbaadana iyadana ma jirto. sidaas awgeed ciyaarta markan waxaa lagu magacaabaa checkmate. runtii ereyga checkmate waa erey Persian ah, wuxuu ka imaaday shahmate oo macnaha laga wado shah waxaa laga wadaa boqorka, matena waxaa waaye kill oo dil, macnaha dil boqorka ayaa waa Persian ah asalkii hore. waxaan laga wadiyey marka shahmate. dad badan oo ciyaarta dheelo ma yaqaanan macnaha saxda ee ereygaas. marka shahmate ayaa laga wadaa oo ah in boqorka la dilo, kill the king. hadda waxaan rabnaa in aan boqorka qabno oo aan dhahno checkmate. marka ka waran haddii aan u baahannahay inaan dhahno checkmate, boqoraddan miya awooddaa keligeed intay baxdo ay dhahdo checkmate oo meeshaas ay tagto. ka waran haddii aan tagno saddexdii ikhtiyaar mid ka mid ah minoo furan yahay. saddexdii ikhtiyaar marka koowaad waxay ahayd in capture aad samaysid, aad xubinta khatarta kugu haysid iska qabatid. midda labaad oo ahayd protection oo xubinta kusoo weeraraysa in xubin kale aad iskaga difaacdid. ikhtiyaarka saddexaad oo ahaa inaad ordid. horta marka koowaad inaad ordid kuma furno oo meel aad u ordid ma lahan. inta askariga taagan, intana askariga taagan, isla markaasna kuweyntana waaba haysaa haddii xitaa askariga uu taagnaan lahayn.
ikhtiyaarka labaad oo ahaa in protection aad samaysid ka hortag aad samaysid oo xubinta ku weeraraysa oo khatarta ku weysid inay xubin kale aad iska hordhigtid ayana kuma furna. laakiin boqorka markaan isagan laf ahaantiisa ayaa isdifaaci kara sababtoo ah boqoradan haddii uu boqorkan qabto wax caawimaad ah ma haysato. xubinta markay ay boqorka checkmate dhayso waa inay caawimaad haysataa sababtoo ah hadda si farxad leh ayuu ku qaadanayaa oo isagana khatar kuma jiro. laakiin meesha hadda ay boqoradda keligeed ka qaadatay askarigaas ka waran haddii uu bishopka meeshan imaado oo qofka kaasoo horjeedana uusan arkin in askarigan uu bareshar 2 mar ah saaran yahay uu guritaan iska sameeyo. markan ayay waxay noqonaysaa checkmate sababtoo ah boqorkan kuma taaban karo oo waxaan caawinaya bishopkan ayaana caawinaya. ciyaartana waxay noqonaysaa checkmate. laakiin bishopkan haddii uusan joogin boqorka simbal uu iska qaadanaya boqoradda adigana askari ayaa qaadatay oo raqiis ah boqoradii dhammeyd oo qaaliga aheedna waa laga qaatay. marka taas macquul maahan. waa in aad mar walba caawimaad haysatid xubinta mar walba waa in ay caawimaad haysataa si kale looguma qaban karo boqorka. macnaha keliya ma ahan in uu bishopka na caawin karo. hadda tusaale farda ayaan keenay fardahan miyuu nagu caawin karaa inaan qabanno boqorka? haa dabcan marka koowaad askarigan ayaan bareshar saaraynaa fardaha ka waran haddartan meeshii markii hore uu naga caawiyey bishopka hadda mana caawin karaa fardahan? haa dabcan ujeedka ugu weyn horta aan rabna waxay tahay inaan askarigan bareshar aan saarno oo aan 2 xubin aan ku qabanno. sidee marka ayuu askarigan fardahan bareshar u saari karaa? waa inuu tagaa F5 oo ah halkaas sababtoo ah hadda askarigan bareshar ayaa saaran marna fardaheenna ayaa weeraraya marna boqoradeena ayaa weeraraysa. sidaas awgeed haddii qofka kaasoo horjeedo uusan ka warqabin in askarigan bareshar uu saaran yahay uu tusaale ahaan uu move kala sameeyo oo ruugga uu keeno E8 ciyaarta way dhammaatay oo boqoradeenna waxay tagaysaa G7 ciyaartan way dhammaatay sababtoo ah 3 ikhtiyaar kuma furna oo ahayd in marka koowaad aad iska qabatid xubinta khatarta kugu haysa marka labaad oo ah in protection aad samaysid ka hortag aad samaysid xubinta aad xubin kale iskaga hordhigtid midda saddexaad oo ah inaad baxsatid oo meeshaba iskaga carartid. 3 kuma furna ciyaartana way dhammaanaysaa. laakiin ka waran hadda caawimaad kale samaysan karnaa keliya farda iyo bishop ma ahan ruuggeena waana caawin kartaa haddii ruuggeena ay sidaanoo kale ugu toosan tahay iyana wayna caawin kartaa. mar walba ujeedka waxay tahay in horta boqorkan ku taaban karin haddii uu ku taabto macnaheeda waxay tahay ruugga ayaa arkaya mana awoodo in uu taabto marka markaasna waxaa la yidhahdaa checkmate. marka farqiga u dhexeeya check iyo checkmate waa intaas. check waxaan ku iri waa markii boqorkaaga uu 3 mid ka mid haysato hadda aan saarno ruugga aan iska saarno saan markay tahay 3 mid ka mid haysata checkmate markaan lama dhahayo laakiin waxaa leeyahay boqorkaaga khatar ayuu ku jiraa oo waxaa lagu magacaabaa check keliya maad ma noqon weli kill ma gaarin. macnaha ereyga wuxuu ahaa shahmaad oo ah kill the king dil boqorka. hadda boqorka ma dili kartid oo queenta boqorka ma dili karto oo wax caawimaad ama haysato markaan waxaa laleeyahay check boqorkaaga wuxuu ku jiraa khatar. laakiin markii ruug uu joogo oo halkaas yaallo ama fardaba aan soo dhigo F5 boqoradeen waxay haysataa caawimaad markaan waxaan leenahay checkmate. laakiin intaba haddii joogin check ayaan leenahay boqorkii 3 ikhtiyaar mid ka mid ayaa u furan oo ah in oo xubintan iska daafaco oo iska qabto. casharkeenna maantana intaas ayuu ka egyahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.